السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلام يا دمانتين رير تيك توك مالك استعدون كجوكتان. إن I know إن سين فرصة إني يوتعسي سنوايو جمعيه هوي مركي دي ما تيكدي في أكاونت كي وحن قليه برايفت مركي ما دام أكاونت كي عن برايفت قليه إن ملا يجسوا تعسيسان أنتي فيسبوك يجسوا تعسيس هذا مهتين أنتي يجسوا تعسيس سناب شات هذا مهتين لما عندك مجال ذي تدقن هدي قرابتها هدي فريندز هدي فاميلي تهنا هذا مهتين واي جروجي يجي الجوين أو قربه يجي فديان مدرسة دحبري إلا ما أنت هو قرآنك وآخرنا الثلاثة دي إلا يمن دي إلا إيو سندي دي وإلى جوجين هبينكي فرايدي ذا أو سردي ذا سوق اللي سهوي دمتي مركا تدوبي بري maalinta sideedaadaan ka qaaday akaunkayga brivatka marka waa mahadsantihiin marka waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin dhammaantiin saasa idinka mahad celinayaa lagama bi'in karo murugta emotionalka lagama bi'in karo especially dad badan waxaa jira halkan grieving oo waalidkood dhintay oo grief garaynayo فيديوغا ugu talagalay I know waxa dareemaysid especially waqtiga hooyada la hadli jirtay aniga badana subaxii marka waagi bariyaan la hadli jiray xilligaas qasab inaan barsada soo fariisto oo because maashi booski markaan wici jiray oo aan wax walba aan qabo weydiin jiray oo waano iyo wixii sheekaysan jirna hooyaday aan isla qosli jirnay waxay ahayd subaxdiina it's hard for me aday igu adag tahay subaxyada markaa soo kaco especially marka I hope qof waxa dareemi kara qof baa dareemi kara waa ogahay inta qof oo daawanaysa I understand qof ku dareemi kara waa qof og si kasta wallahi u samirto iyo si kasta wixii aad dhahdo noloshaada buush garee nicimoy in this time aniga waxaan isku arkaa inaan keligay ahay because aabahay hore u dhintay hooyaday markay dhimatay waxaan isku arkaa inaan keligay ahay marka is dhahdo nicimoy this time you need this you against the wall dad wax lagu soo qorayaa wax ku niyad jabiyo wax ku dhibaateeyo hadallo oo maaragtay dhaawac ku gaarsiinaya qalbigaaga laakiin at the same time life is going on nolosha way soconaysaa ومهتسين دمانتو dadka murugta ila qaybsaday kaligayna ma aha wallahi dad badan oo waxa jira waalidkood dhinteen oo dareemayo wax sida aan dareemayo hadii aad dareemayna umaleyn maayo qof aan dareemeyn inuu jiro kulli xanuunkaas waa dareemay marka hadii qaangaar tahay qof weyn aad tahay 8 sano hadaad jirtid iyo hadii aad jirtid 18 sano xanuunka hooyada umaleyn maayo inuu kala bahalkiyeysan yahay ama kala yar yahay waalidka oo baahan tahay especially aniga qaabkay ii soo gacan qabatay markii la fiiriyo hooyaday gabadhayda 3 bilood jirta uga soo tagay sida dhowr jeer ka sheegay TikTok-gayga markastana aan ka sheego haddaan live ku jiray haddaan Snapchat ka sheekeynaybo I always talk about my mom taasna waxaa ka dareemi kartaa hooyaday hadalka badan aan ka hadla inaan aad isugu dhaweyn gabadhayda uga soo tagay ayadoo 3 bilood jirto wadanka markaa imaadayna xogaa struggling oo xagga sharciga ah maray marka duruufaha awgeed aan ku kala maqnayn ilaahay ha u naxariisto marka comment qaldan idinka ma baahna duco bay hooyaday u baahan tahay maanta marka waxaan idinka codsanayaa dad badan oo qaraabo ama aqood labadaba aday ku taala waxaan isku dayayaa intii tabartay qalbigayga inuu saraacin oo aan si loo siiyo inkastoo dadka familka iyo friendska iyo ehelka dhan ay aaminsan yihiin in qalbigayga raaciyay haddana I'm trying inaan qalbigayga raacin I'm trying inaan shaqadayda aado subaxdii soo kaco shaqo aado ka imaado gurigayga imaado danahayga qabsado cunto karsado guriga nadiifsado laakiin haddana waa isku dhibooyaa oo culays baa saaraya inaan noloshii wada aan isku dayaa marka fadlan waxaan ka codsanaa dadka commentiyada ii soo galaayo oo jecel inay hooyada ii soo xasuusiyaan sida anina igu dhaawacayaan adinka u duceeyaa dhaanto oo commentigiina haysta waa mahadsantihiin aadana mahadsantihiin dhammaantiin waa in salaamaya